hagaag hadaba muuqaalkan waxaan ku bari doonaa practicalka hub bridge iyo repeater. hortiin waxa yaalo design dhammaystiran balse waxaan sameyn doonaa isla designkan oo kale. waxaan ku practice gareyn doonaa ama aan ku arki doonaa sida uu shaqeeyo hub, repeater iyo bridge iyo dhammaantood markii la isku wada xiro qaabka uu shaqeyn lahaayeen. hagaag hadaba ugu horeen waan iska tirtirayaa kan si aan u tirtiro laba option baa leeyahay hal mar inaan wada highlight gareeyo kadib aan dhaho delete kadibna aan dhaho delete ama inaan dhaho file kadibna aan ka doorto control n kadibna aan dhaho no si ay ugu imaato safxadan. hagaag ugu horeen waxa u baahnaa inaan soo dhigto hub iyo laba computer. si aan u soo dhigto hub waxaan tagayaa qaybta hoose kadibna waxa ka dooranaya network devices markii aan doorto waxa ka sii dooranaya hubs. waxaan soo qaadanayaa hubkii waa kana waxaan soo dhiganayaa barxadda. waxa u baahanaa laba computer. waxaan soo qaadanayaa laba computer anigoo tagaya any devices kadibna waxaan soo qaadanayaa laba computer. waxaan isku xirayaa hubkii labada computer. si hubkii labada computer iskugu xiro waxaan tagayaa qaybta connectionska kadib waxaan ka dooranayaa straight over cable. waxaan ku dhufanayaa hubka waxaan ka dooranayaa good koowaad fast ethernet 0/0 waa soo jiidayaa waxaan ku dhufanayaa computerka asna waxaan ka dooranayaa fast ethernet 0/0. hagaag si labadan computer aan xiriir ugu sameeyo waxa u baahanahay inaan helo IP address waxaan kaga hadli doonaa muuqaalada soo socda. si labadan computer iskugu xiro waxa u baahanahay inaan helo IP address internet protocolka isticmaali doono waa mid iska common ah dhammaanteen aan wada naqaano laakiin IP addressinka iyo qaabka u shaqeeyaan waxaan ku arki doonaa muuqaalada soo socdo sectionka networking protocolska. ugu horeen waxaan meeshan ku qoranayaa IP-ga isticmaali lahaa anigoo taabanaya xarafka n ama inaan tago node wuxuu ka caawinayaa inaad dusha ka xifdisanaato hawsha qaba lahayd iyo ujeedka u qaba lahayd. IP-ga commonka isticmaalayna waa glassy waxaan isticmaali doonaa 192.168.1.1 computerka numberkaas u qaadanaa. computerka kale waxaan siinaynaa 192.168.1.2 si aan ugu baxo nodekan oo meel kastoo laga daba imaanayo waxaan leeyahay selection toolka ama waxaan leeyahay escape. hagaag qaacida jirto markii la rabo laba computer inay wax wadaagaan qaacidadu waxay tahay inay hesho hortoore isku xire ama xiriiriyaal sida media cable-ka. marka xiriiriyaasha hesho inaad heshid IP addresska labada wax wadaaga waxa waajiba inay isku mid yihiin. haddii kala duwan yihiin ma shaqeynayaan. kala duwanaansho waxa ula jeedaa fiiri saddexda ugu horeyso waa muhiim ah inay iska lahaadaan gudka afraad way isbedeli karaan. so computerkan koowaad waxa rabaa inaan siiyo IP. si IP aan u siiyo waxaan ku dhufanayaa computerka kadib waxaan ka dooranayaa qaybta desktopka kadib waxaan kasii dooranayaa IP configuration. qaybtan kore waxaa gelinayaa addresska meesha aan kusoo qortay oo aan ugu talagalay ahaa 192.168.1.1. markii aan qayb godka labaad doorto waxa ay soo bixi doono subnetkii oo glassy loogu talagalay. hawlwalin uma baahnid hadda inaad ogaatid IP iyo wuxuu qabto. muhiimaddu waxay tahay un kaliya inaad aragtid falka habka uu sameynayo. computerka labaad aan ku dhufanayaa sidoo kale waxaa ka dooranayaa desktop IP configuration asna waxaa gelinayaa IP oo ugu talagalay oo ah 192.168.1.2 kadibna waxaa dooranayaa qaybta subnetka. hagaag hadda waxaa isku xiranaa hubkii iyo computerskii. sidoo kale computerskan waxaa siinay IP addresses. waxaa u baahanahay computer 1 ama computer 0 inuu fariin u diro computer 1 oo fariin usoo jawaabo computer 2. si arrintaas ay u dhacdo waxa u baahanahay inaan helo bashqada si aan u helo waxaa daawanaya xarafka B for Ben ama waxaa dooranayaa bashqada markaad doorto waxaa imaanaya computerka fariinta diraayo waxaa ku dhufanaya computerka kale fariinta loo diraayo. meeshan hoose waxa ujeedaa inay kusoo baxdo successful. haddii aad rabtid inaad aragto fariinta qaabka u mareeda habka waxaad dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay simulation kadibna waxaan leenahay play. waxa ujeednaa computerka inuu fariin soo diray computerka kalena oo u diray. hagaag waxa aragnaa marka habka inuu fariin u diraayo computerka fariinta loo rabay laakiin muuqaalkii kan ka horeeyay waxaan kugu soo sheegay habka problemkiisa inuu yahay fariin markuu helo inuu u diro dhammaan boortiyada ku xiran oona si toos ah ugu direenin qofka loogu talagalay asna ay ka dhigtay inuu noqdo habka mid dabaal ah. si aan u xaqiijino waxa u baahanahay inaan soo qaadano computer saddexaad. waxaan soo dhiganaynaa computerka saddexaad qaybtan intan waxaan kusoo noqonaynaa real time. computerkan asigana wuxuu u baahan yahay IP-gaasi lahay intaa kusii diyaarsanaya. ha u malaynin nodekan waajib inuu yahay inaad ku qorato kaliya waxaa rabaa inaad ila aragto habkaan u isticmaalayna packet tracerka. waxaan gelinayaa IP-ga kale ugu talagalo ah 192.168.1.3. waxaan tagayaa computerka waxaan ka dooranayaa qaybta desktopka waxaan kasii dooranayaa IP configurationka waxaan gelinayaa IP-ga xaggaas aan kusoo suwarto ah 192.168.1.3.
waxaa fariin ka soo dirayaa computerka, waxaa u dirayaa computerka. waxaan ka dooranayaa qaybta simulationka si uu u arko fariinta gudaha ka dhacayo. waxaa leeyahay play, bal fiiri, waa gaabinayaa si tartiib ah raba inay la aragto. waxaa leeyahay play. computerkan ay fariinta ka baxday, habkee tagtay. habka waxaa rabaa si toos ah inuu kan ugu keeno, ma u keeni doono, muxuu sameynayaa? wuxuu u soo dirayaa qof aan loogu talagelin. kan aan loogu talagelin markuu fariinta helo, muxuu sameynayaa? wuu kansalaya. jawaabtin haddana fiiri, jawaabtin uu u soo dirayaa. tana waxay ka dhigtaa habka inuu noqdo mid doqon ah, aan caqli lahayn, oonan awood u lahayn qofka loogu talagalay inuu gaarsiiyo. tan nadwagaad waxay ka dhigaydaa mid jam ah.